Bismillah, magacaygu Axmed Maxamed waxaan ay aasaasaha suuqa Mo Market Online. Mo Market Online waa e-commerce platform ama electronic commerce oo macnihiisu yahay suuq hab online ah looga adeegto iyadoo la isticmaalayo aaladaha kala duwan ee electronicska ah sida mobileska, tabletska, laptopska ama computerska. Tusaale ahaan marka uu soo booqdo platformska Mo Market Online sida WhatsAppka, Facebookka, Instagramka iyo platformska la midka anagoo markaa ku gaarsiina qaabab kala duwan. Tusaale ahaan qaarkood waxaan ku gaarsiinaa 30 minute, qaar waxaan ku gaarsiinaa 2 saacadood, qaar gobolada waxaan ku gaarsiinaa 6 saacadood. qaababka aan u gaarsiino macaamiisha dalaabaadkooda ayaa waxay tahay qaarkood ku hargeysa kale ama goboladan xafiisyada ku leenahay waxaan ku gaarsiinaa mooto, qaarkood waxaan ku gaarsiinaa baabuurta gobolada u kala baxa, qaarkood waxaan ku gaarsiinaa diyaarado. Mo Market Online qaabkii aan u aasaasay ama fikradu igu dhalatay waxay ahayd maalin maalmaha kamid ah ayaa waxay yimid inaan asxaab ahayn oo ahaa injineer guryaha dhisa. Kadib waxa u baahnaa qalab loo isticmaalo qurxinta guryaha gudahooda ama interior decorationka. Kadib markii aan baadhnay alaabtii waxaan ka weynay dalka gudihiisa ama qaab kale online ah ayaan u weynay. Kadib waxaan ku helay suuqyada online-ka ee laga leeyahay dalka dibadiisa. Qaabkaas ayuu igu dhashay fikradu aan markaa damcay inaan sameeyo suuq online ah oo laga adeegin karo meel kasta ay Soomaalidu ku nooshahay. Waxaan ogsoonahay in adduunku uu sii gurayo xaggii online-ka ama tiknoolajiyadda. Waxaan ogaanay inay markaa fursad weyn ka bannaan tahay xaggii online-ka ama dadka ay u baahan yihiin qaab online ahaan inay ku adeegan karaan ama qaab fudud oo ay ku heli karaan dalabkooda. Kadib markaasaanu samaynay ama aan samaynay fikradan ahayd inaanu suuqa online ah samayno oo markaa ay dadku ka adeegan karaan guryahooda iyo goobahooda iyagoo aan waqti iyo lacagtoona iska lumin. Maalin maalmaha kamid ah ayaa anigoo ismaalaya internetka ayaa waxay soo hormaray page-ka Harhab oo markaa lagu soo bandhigay fikradii ahayd maalgelinta dhalinyarada in loo samaynayo. Kadib waan la xiriiray, waan apply gareeyay hab online ah ayaan ku gudbiyay codsigaygii anigoo markaa maalgelin u baahnaa. Markii aan apply gareeyay waa la soo aqbalay oo waxaan ka mid noqday dadkii ku soo baxay. Markaa waxaan nala siiyay training. Markaan trainingkii galay kadib ayaa waxaan soo bandhignay business plan-kayga. Markii fikradeedii lagu qancay ayaa waxaa nala siiyay maalgelin ah $4,000 oo loo yaqaano equity fund. 4,000 markaa baahida jirtay may kafeynayn. Kadib haddana Harhab waxay noo fududaysay inaanu isticmaalo platform-ka la yiraahdo Tarmiye crowdfunding fund oo aan ku urursanay 4,000 oo kale. 8,000 ayaan markaa businesskii ku ballaarinay. Maalgelintii aanu Harhab ka helay waxay naga saaciday in businesskayga uu si karo si ballaadho isla markaana uu gaaro goobo aanan markii hore gaari jirin. Isla markaana sidoo kale ay nagu soo kordheen hawlwadeenno fara badan oo ilaa 20 gaaraya oo ku kala sugan gobolada iyo geeyiga Soomaalidu degto oo gaarsiiya macaamiisha dalaabaadkooda. Dhalinyarada waxaan u soo jeedinaynaa ama aan kula talinaynaa dhalinyarada haya fikradaha kala duwan. Waxaan u soo jeedinaynaa ama aan kula talinaynaa inay u soo bandhigaan fikradooda cid kasta oo ka qayb qaadan karta ama wax ku tari karta.